hooyo miyay ku qaleen hooyo maxay kugu sameeyeen hooyo xaguu wax kaa gaadhay kolba dhinac bay kaga yimid anoo meesha alla mid ka mid ay u soo baxay faraheenu ma sinna ciidankuna isku mid maaha wuxuu ku soo hagaagay nin jidhka islaamku ku yaallo oo garanaya inaan hooyo u ahay daraynaya wuxuu yidhi adeer hooyaday ma la hadlaa haa la hadal buu yidhi kii yaraabaa soo tallaabsaday wuu dareemay wuu ooyay hooyo maxaa kugu dhacay hooyo miyay ku qaleen hooyo maxay kugu sameeyeen hooyo xaguu wax kaa gaadhay kolba dhinac bay kaga yimid anoo sidaan kula hadlaya ilaahay og yahay ilmahaaga dareenkiisa ilaalina isla ayaan ku yidhi hooyo axmaarana ima hayso waxna ma qabee hays dhibina oradoo hooyo askarigii baa ooyey wuxuu ku yidhi abti intayna dad kale inoo imanin waa lagu dili hooyadaa waxba ma qabtee orado hooyo maalin maalmaha ka mida yaa labada garab lay qabtay maxaabiistaasaa la yar dhaafiyey fiiq waa wada dhagaxoo waad aragteen nin waliba dhagaxii gacantiisa ugu dhacayo uu qaadan karay yaa waxaa laygala dhacay gacmaha iyo lugaha intaa iyo inta hoos heer waxaan gaadhay gacmahayga iyo lugahaygu ay dhiig isku daraan heer waxaan gaadhay aan maradii aan huwanaa qabsan kari waayo heer waxaan gaadhay waxa iga socdaa inuu biyo yahay iyo dhiig inuu yahay aan kala garan waayo heer waxaan gaadhay dhididkaygii iyo dhiiggayga isku darmadaan iyagu kolkay iga noolaadeen ee waxa ila dhici kareen ila dhaceen ee meeshaygaga tageen ninbaa waxaan ku yidhi beerku waxaa ma yaqaano anigoo waxaasi haystaan haddana u maleeyay wiilkaygii in la dilay ninbaa waxaan ku yidhi wiil yaroo halkaa ku xidhan ma ii sheegi kartaa inuu nool yahay in kale naaga hor halalaase naga fadhiisa dhilla yahay garacdii buu igu yidhi intuu laag igu dhuftay maalin maalmaha ka mida yaa iyada oo dad la sii daynayo iyo dadkii asluubtaan ugu imid ee mas-uuliyiintaaba xafiskii igu daray mas-uulkii dadka xafiskiisa bixinaya ilaahay baa wax cafiya kolkuu magacaygii arkay buu ku yidhi maxaad ugu darteen miyaan ka noqonaa dadka mise magacanaad ka saaraysaa magacaygii baa sidii lagaga saaray ninkii waanu imid waxaan ku yidhi waxaa weeye ilaahay baa wax cafiye raalli ahawo laakiin hal codsi baan wataa xukunkan adag markaa gabadh xukunkeedu intaa ka badan yahay xabsiga kuma jirin xukunkan adag anu ma aaminsani ee ehelkaygii aaminay inaan ku waarayo keliya inaad iga jebisa isku day waxoogaa inay irbadaydii gashay baan u maleeyey wuxuu yidhi maxkamadda guud ha la geeyo maxaan idhahdaaye ha laga qaado ha laga jebiyo xukunka waata warqadii la iigu gudbiyo maxkamadda